qodobada ugu waaweyn waxa qaybka 6 sano kadib Villa Soomaaliya waxa iskaga guuraya mas'uuliyiin caan ah oo Villa Soomaaliya degan yaa kamid ah shakhsiyaadka Villa Soomaaliya ka guuraya 6 sano kadib xog ku saabsan ayaa idin soo gudbin doona Ra'iisul Wasaare Roble wuxuu xilka ka qaaday qaar kamid ah taliyayaasha ciidamada iyo sidoo kale taliyaha booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole oo la amray in xilka ka qaado taliyayaasha booliiska ee saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir waxa kale saaxiib yaal qayb ka noqon doona wararkeena xog culus oo ku saabsan madaxweyne Dani oo safar u jeclaysan farmaajo ku tagaya Nairobi iyo Kismaayo hadaba socdaalka Dani uu ku tagaya Nairobi iyo Kismaayo iyo sababta uu u jeclaysan farmaajo safarkaas ayaan wax badan kaga haya isbedel lagu sameeyay lacagaha diiwaangelinta musharaxiinta ee haweenka laga qaadayo hadaba maxay tahay isbedelka haweenka kaliya loo gaar yeelay shaqada doorashada si rasmi ah u bilaabatay Ra'iisul Wasaare Roble oo guddida doorashooyinka maanta tababar u furay iyo macluumaadyo ku saabsan ayaa idin soo gudbin doona iyo magaca iyo beesha uu ka soo jeeday ninkii isku qarxiyay Wasil deegaanka Wasil ee koonfurta gobolkaasi Mudug ayaan idin hayaa qodobadaasi kuba kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa wararkeena qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena subscribe noo dhigam baraalkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada ee xogaha gaarka ee halkan aan ku baahinayna saaxiibayaal 6 sano kadib Villa Soomaaliya waxa iskaga guuraya mas'uuliyiin caan ah oo Villa Soomaaliya deganaa kuwaas oo la sheegay in dhowrkii sano ugu dambeeyay ay hayeen kuwa ku noolaa Villa Soomaaliya gacan yare qaasna u ahaa madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday farmaajo sida ilo wareedida qaar aan helinaya xaqiijinayaan 6 sano kadib ayaa eegayna shakhsiyaadka suurtagalka inay iskaga guuraan Villa Soomaaliya gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliimire ayaa kormeer shaqo ku tagtay xarumo dhexe oo guddiga doorashooyinka ama komishinka xafiisyo loogu sameeynaya Xaliimire ayaa qaybka shakhsiyaadkii 6 sano ahayd deganaa Villa Soomaaliya kuwaas oo iska deganaayeen xarunta madaxtooyada laakiin hadda ka guuraya muddo 6 sano kadib ayay si ku meel gaar ah ugu shaqaysanayeen xafiis ku yaala madaxtooyada laakiin ay ku qasbanaanayaan in hadda ka guuraan Xaliimire ayaana qaybka shakhsiyaadka waqtiga dheer deganaa madaxtooyada waxa sidoo kale shakhsiyaadka madaxtooyada ka guuraya qaybka xubno ehelay iyo qaraabo dhaweeyeen farmaajo 100 maalin ayaa u hartay farmaajo inuu xafiiska sii joogo hadduu ku guul dareysto farmaajo doorashadaas ayaa isna waxa uu ku qasbanaan doonaa in madaxtooyadu ka guuro oo na yimaado madaxweynaha cusub ee la doorto laakiin farmaajo saaxiibadiisa Fahad Yaasiin Cali Yare ayaa wada olole xoogan ay doonayaan inay ku soo dhisaan farmaajo oo mar kale uu qabto majaraha siyaasadda Soomaaliya Villa Soomaaliya ka guuristeeda ayaa culus weyn ku noqon karta farmaajo iyo kooxdiisa maadaama 4 sano ugu dambeysay ay ku damaashadaan diiwaankan ay u galeen taariikh madow oo Soomaaliya loo diiwaan geliyay farmaajo kooxdiisa inta xafiiska joogeen ayaa waxay geysteen qaladaad waaweyn oo diiwaanka u galay waxaana qaybka qaladaadkaasi dhiibistii qalbi dhagax dhalinyaro badan oo tababarhan lagu qado wadanka Eritrea kuwaas oo hadda nolol geeri lagu leeyahay kooxda ka dagaalanta gudaha Ethiopia ee jabhadda xureynta ee Ethiopia oo ila liiska madow argagixisada lagu daray iyo waliba waxyaabo kale waaweyn oo diiwaanka u galay dawladda farmaajo oo qaybka weerarkii ka dhacay Baydhabo xarigii Muqtaar Robow weerarkii Cabdiraxmaan Cabshakuur boobkii doorashada ka dhacay Baydhabo iyo sidoo kale gobolkaasi Dhuuso Mareeb ee iyo waliba in Jubbaland ciidamo la duligo Ethiopian ay cunaqabateynta la saaray Jubbaland ayaa qaybka waxyaabaha diiwaanka u galay farmaajo taas oo dhaawacaysa qorshiisa dib u doorashada wuxuuna ku qasbanaan doonaa 100 cisho kadib inuu ka guuro madaxtooyada qodobada kale saaxiib waxa qayb ka ah Dani oo arin uu san jeclaysan farmaajo doonaya inuu sameeyo isagoo socdaal ku tagaya magaalooyinka Nairobi iyo Kismaayo sida xogaha qaran ku helayno madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la filayaa safar uu ku baxo magaalooyinka Baydhabo Kismaayo iyo Nairobi toddobaadkan sida wali si cad looma oga ujeedka Dani uu u tagayo saddexdaasi magaalo balse waxa la soo sheegayaa ama farmaajo kooxiisa ka baqayaan in ololaha madaxweyne Dani hadda uu bilaabay in saameyn weyn ku yeesho farmaajo marka loo eego saameyn qaybsiga dalkeena farmaajo iyo waliba madaxweyne Dani hal dhari ay ku wada jiraan
beel ahaan taasoo farmaajo uu ka cararayo in madaxweyne dani oo hadda si weyn loo hadlaayo inuu yahay musharax damac kaga jiro kursiga madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweyne dani ayaa la sheegay inuu hadda uu bilaabo ololihiisa doorashada asagoo safar ku tagay magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo oo raba inuu helo codadka xildhibaanada halkaas ka imaanaya. Hadalhayn badan ayaa jirta oo ah in la filayo inuu kormeero waa in uu isku soo sharaxo madaxweyne dani madaxtinimada Soomaaliya sida uu sameeyay Korneyl Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo waqtigaasi Puntland ahaa madaxweynihii Puntland sanadkii 2004 xilligaas isagoo madaxweynaha ahaa Puntland ayuu si lama filaan isku soo sharaxay xilka madaxweynaha Soomaaliya wuuna ku guuleystay Korneyl Cabdullaahi Yuusuf. Siyaasiyiinta aragtida fogle waxay sheegeen in dani hadda uu haysto fursado waaweyn oo ku imaan karo ama isbedel xoogan uu ku sameyn karo. Madaxweyne dani ayaa la leeyahay waxa uu sameyn karaa isbedel weyn oo isku soo sharaxi kara wuxuuna culays weyn u saari karaa farmaajo maadaama hal dhari ay ka soo wada jeedaan miisaan ahaan waa hal dhari ay ka soo jeedaan qabiil ahaan taasoo farmaajo culays weyn ku noqon karta. Madaxweyne dani ayaa hadda la ogaaday inuu bilaabo ololihiisa doorashada oo uu doonayo in gobolada dalka safaro uu ku tago si uu ku helo codad badan. Ila wareedi lagu kalsoon ayaa sheegaya ama channelkana u sheegay in lagu qalqaaliyo Siciidan inuu isku soo sharaxo asagoo dowladda Imaaraadka Carabta u ballan qaaday milyan dollar inay ku taageeri doonto ololaha doorashada. Waxaa la sheegay in dani uu taageero ka haysto dowladda isku taga Imaaraadka Carabta oo dhaqaale u ballan qaaday saaxiibo dhowna ay yihiin. Waxaa sidoo kale dani oo taageero ka helay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh oo laga yaabo inuu u tanaasulo iyo waliba shakhsiyaad kale. Dani ayaa hadda gacanta ku haysta xildhibaanada ka imaanaya Puntland oo isagu soo maamuli doono kuwa ka imaanaya Kismaayo oo ku tashanayo asagoo doonaya in Baydhabo iyo waliba Galmudug uu ku darsado. Galmudug iyo madaxweyne Siciidani gaar ahaan madaxweyne Qorqori dani ayaa hore wada hadallo u yeesheen arrimaha doorashooyinka ku heshiiyay labada dhinac ka wada shaqeeyaan sidii ay u heli lahaayeen kuraasta taas oo dani u sii xoojinaysa iskaashiga Galmudug uu leeyahay asagoo sidoo kalena dhaqaale u ballan qaadaya Koonfur Galbeed xildhibaanadooda. dhinaca kale isbedel ayaa lagu sameeyay lacagta diiwaangelinta musharaxiinta haweenka ee u tartamaya kuraasta. kulankii labadii maalin kaga socday golaha wadatashiga qaranka ayaa isku raaceen in 50% la dhimo khidmada lacagaha laga qaadayo musharaxiinta haweenka ee u tartamaya labada aqal. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ururada bulshada rayidka haweenka xildhibaanada ay dood adag ka keeneen lacagaha haweenka lagu xiray. musharaxiinta haweenka ee aqalka sare ayaa hadda laga qaadayaa $10,000 halka kuwa golaha shacabka laga qaadayo $5,000 waxaana lacagta diiwaangelinta ee xubnaha aqalka sare markii hore ay ahayd 20,000 hase yeeshee hadda 10,000 laga dhigay halka xubnaha ragga laga qaadayo $20,000 qof walba u tartamaya kuraasta. dhinaca kale haweenka ayaa la sheegay in qoondadooda loo xaqiijiyay 50% inay ku yeelan doonaan kuraasta soo socota. waxaana xildhibaanada haweenka loo sheegay inay aad u yareeyaan cabsida xoogan ay muujinayaan maadaama 50% loo ballan qaaday helida kuraasta baarlamaanka. dhinaca kale shaqada doorashada ayaa si rasmi u bilaabatay. Ra'iisul Wasaare Roble ayaana maanta furay tababarka gudiyada doorashooyinka. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa tababar u furay gudiyada doorashooyinka heer federaal ee heer dowlad goboleed. tababarkan uu socon doono muddo 4 cisho. gudiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ayaa diiwaangelintooda ay waa gudiga federaalka ee doorashooyinka ayaa maanta tababarka loo furay waxaana la filayaa in tababarkan uu socon doono muddo 3 cisho waxaana si toos ah loo gudagalay howlaha doorasho. Ra'iisul Wasaaraha ayaa gudiyada kula dardaarmay in saddex furan oo cadaalad ay ula shaqeeyaan maamulka doorashooyinka iyo waliba in sidoo kale wax musuq ah la sameyn. jadwalka doorashada ayaa shalay la soo saaray lagu dhawaaqay shirkii Muqdisho iyadoo shaaca laga qaaday in madaxweynaha doorashadiisa ay dhici doonto 10 Oktoobar ee sanadkan. waxaa jira arrimo weli aan xal laga gaarin oo u baahan in xal laga gaaro balse shaqadeedu ay socoto. maamul goboleedyada oo qaarkood weli muran badan ka taagan gaar ahaan arinta gobolka Asagado beled xaabay dhaqaalaha doorashada oo maanta warbixintii aan kula wadaagnay. dhinaca kale waxaa la filayaa madaxda maamul goboleedyada ay dib ugu noqdaan magaalooyinkooda si ay u dardargeliyaan howlaha u igmada xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble ee shaqooyinka doorashada. laakiin maamul goboleedyada ayaa la soo sheegay in weli aysan ka heshiinin arrimaha dhaqaalaha doorashada iyo sida loo maareynayo maadaama arintan khilaaf xoogan weli uu ka jiro.
farxaan qaroole ayaa la amray inuu xeelka ka qado taliyaasha kontaroolada muqdisho. amarkan waxaana bixiyay ra-iisul wasaare roble ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa janaalkeena u sheegay in xilka laga qaaday sarkaal sare oo kamid ah booliiska gobolka banaadir. xogtaan helna ayaa sheegaysa jarnaal cali mahad waa janaal mahad cabdiraxmaan cumar oo loo yaqaano mahad korow oo shaqada uu ka joojiyay habeennimadii xalay. taliyaha ayaana taliya farxaan qarool ayaana mahad korow shaqo joojin ku sameeyey. taliyaha qaybta booliiska gobolka banaadir gaashaanle sare farxaan maxamuud aadan qaroole ayaa shaqadii ka joojiyay taliyaha qaybta ahna taliyaha kontaroolada wadooyinka caasimada. mahad korow ayaana la sheegay inuu sameeyey amar diidmo, taasoo amar diidmadaasi keentay in xilka oo shaqo joojin lagu sameeyo. lama oga khilaafka hoose labadan sarkaal dhex maray, waxaana arbacadii maanta la ogaaday arrintan ay soo baxday kadib isbedelka lagu sameeyey taliyaasha kontaroolada. mahad korow ayaana shaqo joojin lagu sameeyey. amniga caasimada ayaa aada loo adkeeyay iyadoo sidoo kale ciidamada heega la geliyay oo caawa idinla hadlaya muqdisho ay ka soconayso xuska 11 sano guuradii kasoo wareegtay gobolada koonfureed markii xurrimada ka qaateen gumaysiga talyaaniga oo caawa ay tahay 1 luulyo israaciil koonfur iyo waqooyi loo dabaaldegayo. amniga caasimada ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo laga baqayo in al-shabaab mushkilado dhanka ammaanka ay geystaan. ugu dambeynna daawadayaal magaca iyo beesha uu kasoo jeeday ninkii isku qarxiyay deegaanka wisil ee dhaca koonfurta gobolkaasi mudug ayaan markan idiin soo gudbin doonaa oo aan ogaanay. kooxda al-shabaab ayaa maanta soo bandhigtay magaca iyo beesha uu kasoo jeedo naftii haligii isku qarxiyey weerarkii kooxdan maalintii axadda ahayd ay ku qaadeen magaalada wisil ee gobolkaasi mudug. idaacadda al-andalus ee ku hadasha afka al-shabaab ayaa baahisay dardaaran uu reebay dagaalyahanka qaraxa ku daafuray dagaalkii wisil, waxaana magaciisa lagu sheegay in la yiraahdo mahad hirow oo al-shabaab dhexdiisa loogu yaqaano cabdulaahi jazar, kaasoo ah nin 28 sano jira. al-shabaab ayaa sheegay ninkan uu dhashay waa ninkan uu ku dhashay degmada la yiraahdo rag buure ee gobolka bakool. waa nin kasoo jeeda beesha raxaweyn oo markiisa horena al-shabaab kaga soo biiray asagoo jiray 16 sano. cabdulaahi jeere ayaa ah nin kasoo jeeda qabiilka la yiraahdo raxaweyn oo ah xubnaha u badan beeshaasi. weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen magaalada wisil ayaa waxaa ka dhashay khasaare isku jira dhimashay, dhaawac iyo burbur xoogan uu ku yimid guryaha halkaasi ku yaalo. inta la xaqiijiyo weerarkaas waxaa ku dhimatay 30 qof oo isugu jira shacab iyo ciidamada dowladda, inkastoo al-shabaab ay sheegteen weerarkaas inay ku dileen 35 askari. magaalada wisil ayaa waxaa hadda gacanta ku haya ciidamada galmudug oo aad u abaabulan, kuwaasoo gaar ahaan weliba qaab qabiil u abaabulan. ciidamadaas u badan beesha sacad oo dagaal xoogan kula jirta al-shabaab. dagaalyahano ka tirsan al-shabaab oo weerarka kusoo qaaday magaalada wisil ayaa sheegay in magaalada bacadweyn ay doonayaan inay qabsadaan oo beesha dir sore halkaasi degta oo ina dagaal culus kula jirta al-shabaab.